دكتور إدل عويل علمي ayaa ku guuleystay abaalmarinta dhakhtarka caafimaadka dhimirka ee ugu wanaagsan sanadka 2024 Somali Health Award taas oo muujinaysa dadaalkeeda iyo xifradeeda ay kaga dhex muuqato bulshada Soomaaliyeed. Dr. Idil oo leh khibrad ballaaran muddo 13 sano ah oo dhinaca daryeelka caafimaadka dhimirka waxa ay si nafurnimo leh ugu adeegtay shacabkeeda gaar ahaan dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka ee dhimirka. abaalmarintan waxa ay ka turjumaysaa saameynta ay ku leedahay horumarinta adeegga caafimaadka dhimirka iyo wacyigelinta bulshada. Intaa waxaa dheer Dr. Idil ayaa sidoo kale ka mid noqotay 100 qof ee ugu wanaagsan waxqabadka sanadka 2024 taasoo muujinayso tayada iyo daacadnimada ay ku qabato shaqadeeda. Waxa ay door muhiim ah ka ciyaartay kor u qaadista helitaanka daryeel caafimaad oo tayo leh iyadoo ka shaqeysa sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta bulshada ee ku saabsan caafimaadka dhimirka. Guushani waxay dhiirigelin u tahay dhaqaatiirta kale ee ku howlan caafimaadka waxayna sidoo kale muujinaysaa sida ay muhiim u tahay daryeelka caafimaadka dhimirka ee Soomaaliya. waxaan hambalyo leenahay Dr. Idil Awil Cilmi oo loo aqoonsaday saameynta ay ku leedahay bulshada iyo sida ay ugu taagan tahay inay ka shaqeyso horumarinta caafimaadka dhimirka. Dictoreysada ayaa noqotay xidigta sanadka 2024 ee dhinaca daryeelka caafimaadka ee dhimirka ee Soomaaliya.